Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu ogaaday in ciidamo tababar uu ugu diray Eritrea madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo adeegsaday dagaalo ka dhacay gudaha dalka Itoobiya. Warbixintan ayaa lagu sheegay in dhalinyaradan oo ku sugnaa kuna tababaranaya xeryo ku yaala gudaha dalka Eritrea loo duuliyay dhanka Itoobiya iyaga oo ka qayb ahaa dagaalo ka dhacay gobolka Tigray ee gudaha dalka Itoobiya. Inkasta oo maamulka Farmaajo marar badan ay iska diideen warkan, haddana warbixinta Qaramada Midoobay ayaa imaanaysa iyada oo dhowr bil ay si joogto ah dibadbax u wadaan waalidiinta carruurta dhashay, taasi oo filla Soomaaliya ay iska dhiga tirayso. Warbixinta UN-ka oo looga hadlay xuquuqul insaanka Eritrea ayaa lagu sheegay in dhalinyaro Soomaali ah oo tababar u joogay dalkaasi xoog looga waday xeryihii ay ku tababaranayeen lana geeyay magaalada taariikhiga ah ee Aksum iyo goobo kaleeto oo badan oo ka tirsan gobolka Tigray. Farmaajo ayaa qayb ka ah isbahaysiga Geeska Afrika oo uu hogaaminayo Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, waxaana kaleeto oo kula jira kaligii taliyaha Afwerki ee madaxweynaha ka ah Eritrea. Dagaalka la sheegayo in dhalinyaro Soomaaliyeed ka qayb noqdeen ee ka dhacay gobolka Tigray ayaa waxa ku barakacay in ka badan 2.2 milyan oo qof, kuwaasi oo intooda badan ay u gudbeen xadka Eritrea ay la wadaagto dhigeeda Suudaan. Waalidiinta carruurtaasi loo diray Eritrea oo marar badan la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in markii hore carruurtooda xoog looga waday, haddana loo diray dagaal aanay shaqo ku lahayn iyagoo mas'uuliyadda dusha ka saaray Farmaajo. Waalidiinta qaarkood waxa ay caddeeyeen in NISA u sheegtay in carruurtooda loo wadayo Qatar sabab la xiriira koobka adduunka, laakiin xoog loogu waday Eritrea iyada oo la sheegay in la soo celinayo. Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo horey uga tirsanaa taliska nabad sugidda Soomaaliya NISA waxa uu sheegay in 370 dhalinyaro ah ay ku dhinteen dagaalada, arrintan oo aysan weli ka jawaabin